markana waxaynu ka warramaynaa ciidamadan safka hore uga jira kuwa ugu fiican bariga dhexe iyo qayb ahaan adduunka. waa xoogga jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iiraan oo kaalinta 14aad uga jira quwadaha military ee waagan dunideena ugu xooggan. xoogga Iiraan oo ka kooban ciidanka guud ee qaranka oo la yiraahdo Artesh, ciidamada khaaska ah ee la yiraahdo Islamic Revolutionary Guard Corps, magacooda Beershiyaanka hayna yahay Sabah, iyo booliiska dalka oo la yiraahdo Faraja, waxay isu geyn tiradiisa oo ay ku jiraan ciidamada kaydka ah ee dalka iyo shacabka dagaal gali kara ee askar ahaanta u tababaran lagu sheegay in ku dhow 787,000 oo askari. docda khibradda dagaal, tababaradooda iyo tirada ayaa Iiraan ka dhigaysa mid ka mid ah kuwa ugu xooggan dunideena. ciidamadoodu satiro ahaan intaas kaliya ma aha, oo kuwan ayaa iyaguna ku tirsan xooggeeda. On top of that, let's not forget Hamas is theirs, 40,000, Hezbollah 100,000, Houthis 150 to 250,000. That's a million people they have that serve for them. Iiraan 1979 ayaa ugu dambeysay hub ay Ameerika ka gadato. Ruushkuna waxa uu joojiyay inuu dalkan hub ka iibiyo sanadkii 1990. waa dhamaadka dagaalkii Ciraaq iyo Iiraan. inta kaliya ma aha Iiraan waxay sanado badan la dhibtoonaysaa cunaqabataynta hubeed ee ay saareen qaramada midoobay iyo Mareykanka, balse taasi kama joojin dalkan inuu horumariyo quwadiisa hubeed. oo sida khuburadu sheegaan, Iiraan waxay si sarreysa u horumarisay warshadaheeda hubka sameeya ee maxalliga ah. marka hubka gacanta laga yimaado, Beershiyaanku waxa ay gaareen inay samaystaan taangiyo, gaadiidka gaashaaman, drones iyo gantaalo balastiga oo rido dheer, taasoo ka dhigtay qalab ahaan mid ka mid ah militariga ugu halista badan dunideena. culayska dunida ka saaran awgiis, Iiraan waa ay qarisay hubkeeda nukliyeerka atilo ahaan, warshadaha u sameeya iyo quwad ahaan xaddiga awoodeeda nukliyeerka. balse khuburada militarigu waxa ay rumaysan yihiin in dalkani kaliya kama mid aha ee safka hore uga jiro wadamada dunideena ee ku hubaysan quwadda nukliyeerka. militariga Iiraan waxa loogu yeeraa mid ka mid ah ciidamada daleed ee ka qayb galay dagaalada ama konfliktiyada ugu badan. kuwa ugu caansan dagaalada ciidamadani galeenna waxa ka mid ah dagaalkii Ciraaq iyo Iiraan, Iiraan iyo Israa'iil, Iiraan iyo Saudi Arabia, iyo dagaalo kale oo cusla bariga dhexe iyo adduunkaba. marka ay joogto, Iiraan waxay safka hore uga jirtaa quwadaha muslim ku tirsado ee laga cabsado.